السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو جنال كيغا يان قوب دونا مركالي اسكسو نقود وناكسن إيه موقال كلا عصب فضلا هدايق عصب تاي سو دو سبسكرايب إيسار كمن نقا أسحابتي إذا داور إلى جوكتنا موقال كان لايك إيسار وانا ما تسنتين دما ولا لا كحران جنال كيغا ميل والبواد جوكتين وحن إلهي دين كغير جيني يا نبض إيه عافمات إنا تكون ولاتان أسحابت عصب إيه كسو بيرت جنال كيغا وحن لا يقع مفرون كسو دواذا جنال كوا جنال كينا ومركله iyo muuqaal kale cusub iyo qisadii Foosay oo noo mareysay qaybteedii afaraad waxay qaybtii saddexaad ku soo dhamaatay markii ninkii asaga ahaa uu naagtii inta hoteelada raqiiska ah uu go'aansaday inuu 7 kula soo galo oo ayadiina uu ka dhaadhiciyay inuu safraayo aan waxaan soo ogaaday tiri isaan ku ogaadayba ninkan inuusan safrin oo magaalada uusan wad yaani muqdisho uusan ka bixin ma uusan u safrinay tiri sida uu ii sheegay macnaha ima uusan dhihin meel fog aan u safraa meelahan gobolada dhadhow ii sheegay taleefana u diray tiri seetaay ma fiican tahay safarkaaga iiga waran asagoo tartaraayo qof xoogaa laga dareemayo inuu wax qaraay ah yahay waxa dhacday tiri inuu yiri waa fiicanaha nabad seetaay asan ku iriyay safarkii wixii ku raaciyay iiga waran asuu yiri xaaka wada markaas waxaan ku iriyay tiri aboo 7 bax wanaagsan anigu ciyaal ma ihi inaad naag guursatay oo naagtii ayada ahayd aad 7 kula jirtid waa aan la socdaa waxay tiri habeenkii saa markaa iri taleefankan intisaam ku siiyay oo dansaday aan hurdadayda sii dheeraystay tiri asagoo xiimaayo oo ii imaaday tiri hadduu ii imaaday tiri iima imaanayay tiri isla habeenkii subaxii ii imaaday tiri intuu labada jilba i qabsaday oo wuxuu igu yiri tiri aniga waxaan u guursaday ma fahansan tahay naagan kula meel dhiga ma taalo naag sidaa gaariyad u tahay gaariyadu waa weligay heli maayi naag sidaa iigu sabartay iigu sabrayda weligay heli maayi waxaan u guursaday in aan waalida jacayl ee adi aan kuu qabo inaan isku iloobsiiyo sidaan kuugu soo jeestay oo qalbigayga xumaanta uga saaray oo go'aansaday marwadayda xalaasha ah daacadnimo iyo kalsooni iyo gacan furnaasho inay ayadu mudan tahay inaa adigu tahay adiga iga mashquushe jacayl gooniya u guursada ma jirto haddaana furaaya waxaan ku iriyay tiri dhageyso ama fur ama ha qabin anigu go'aankayga wuxuu yahay inta soo dhan soo kuma soo sabreynin go'aankayga wuxuu yahay aniga kaliya ina isakay ilowdid oo aad madaxayga isiisid kabacdi waxay tiri isku darsame aniga naag aan qodba siro ku guursaday oo cideeda aysan ogeyn ma gurigayga u duduminaa oo aan ku furaa ka soo fakiraa inay tiri go'aankaas hoostan ka xariiqe ina ifurtidna waa ay iga soo go'day ee ifur kabacdi waxay tiri meeshii anagoo qar iyo qar kala taagan oo igu yiri waa aan furaa oo ayro naag ani ii furaysid anigaad ifure anigaana go'aankaas gaaray aan waxay tiri gurigii hooyaday inta dharkaygii adduunkaygii iyo alaabtayda isku jaaftaan tagay tiri si aan hooyadayna ula soo tashto maskaxdana aan u soo degsado aniga waxay tiri xilligan la taagan yahay waxaan islahaayay tiri gurigaaga u sabar laakiin qofkii noocaas ahayba hadduu naa keene habeenkii xaliyahayu tagaan ireetiro inaan u sabrin hooyaday hooyo aqli badan oo noloshayda dhismaheeda kaalin weyn ka soo qaadatay aheede soo dhawaaway tiri naag lagula guursado wax ka daran u soo sabartee hooyo hadduu maanta kuu jajaban yahay midaad biri guursanaysid ma wuxuu noqon doonaad ogtahay ilmahaaga aabood hadduuba kuu wanaagsanaanayo naagta hadduu asaga furaayo asagay u taallaa amad adigu ii furtiri maya haddiiba ay ka soo go'day asagu inuu furo ha furo kabacdi waxaa dhacday tiri anoo gurigii hooyo joogo naagtii ma uusan u noqone 7diiba nimco iyo reereen loogama bixine gurigii soo hoyday
aasuu wuxuu ii soo diraahay tiri sawiro isagoo sariirta jiif soo fadhiyo taleefanba kama qabtay tiri go-aankii aan kuu diray aan rabaa leeyahay tiri kabacdii aabbahay raadiyey adeero waa qaldamay nin xunaanahay qaladkayga yaan la ii qaban naagta aniga hadda waa aan furay jaa markaas wuxuu go-aansaday waa aan furay uu yiri laakiin waa aan furay markaas uu dhahay runka ma ahan ee naagtii inta la yiri midhaa furiin iyo wax loo sheegay ay isceli weyse ee waxayba istiriba guri mudul dhisan kama naxee ayba aniga indhaadeegeeda isoo raadis hadday isoo raadisay taleefanaan ka qabtay tiri lambarkeedana waaba ii seefnaaya tiri shawqumay aba ugu qorneedba waxaan iri tiri hay xaaga soo raadisay ninkii maad igu qaladay oo raqamkiisa raqamkayga u malayde aase tiri dhageyso lama naagoodoo laysla qabaanahay duurka iyo magaalada waa waxay iyadu intii soo abaabulatay ama ka dhex guuxaaya ee rabta aniga inay igu tiraahdo naa magaalada waxa aad gashatay oo hiblaayo waa la furaa naa habeenna ha ku riyoon maalina ha ku riyoon nayaa wixii adiga lagu qaban waayey aniga la ii qabanaa naama waxay kula noqotay in aniga dartaa la ii furaayo aasaan waxaan inay tiri hortaa la ii qabay adigaa gadaal lagaa keenay gadaal ka gaartooy gurigaagu habba guri inta aqal laguu sameeyey hal qolba allah ka dhigee ma lagugu casuumo ma laguu naanaashe markaa aniga ila factamaysid anigu naag marwe ah oo gurigeeda sharaf ku leh dhib iyo dheef waxay qabto meel ku asturan aan ahaaye aniga waxaa iga soo raadisay intaas markaa iri intay iscuntay aan waxaan u raaciyey tirnaayaa ninkii inuu meel ku dejisto ku sharfo ilmahayga la dhashay aada dhaleehe inta aan shaqaysanayo naag labadeeda lugood ku istaagta aan noqonayo keed iyo adduunyo suubsanayo wax ma noo sii dhaldhale aasay sii karkartay tiri kabacdina waxaan iri tiri albaab qaldan oo aadan u qalmin inaad soo garaacdid aadnaayaa soo garaacday maanta waa aada isoo wacdee ballan waxaan kuu qaaday inaadan maalin dambe taleefankayga aadan soo wicin asagiyaan waxay tiri inta waxaan iri tiri waryaah idhageyso meesha aad ku guursatay ood naagta geysatay waa aan aqaanay amaan ku soo raadiyey amaa qayla dhaantayda ay ku soo gaartay amaan kalarka kugu dhagay maxaa naagta adiga aada guursatay ay ku awoodo inay ani isoo raadiso adiga may ku soo raadise aasaan iri dhageyso waxaan aada wax ku darsatay isku day inaa iga idabsatid aasuu wuxuu yiri waa wada hadlaynaa kaalayoo guriga imaawo wax walba oo aad rabtid iyo si walba oo aad wax u rabtid ay wax u dhacayaane kuu imaamaayo waxaan kuu sheegaa waxaan ku iri tiri barteydiyaan taaganahay naagtahay nabadgeliso markaan waxay tiri asaan isku kibraa hooyo go-aankii ay tiri ilmahaaga aabbahood hadduuba soo fiicnaanayo naagta xataa hadduu soo arko hooyo cashiruu ku soo baranaa inuu adigu heli karinuu arkaa yacni adigoo kale qofaan u noqonaynin uu yacni soo arkaaye u kaadi ninkii waxay tiri taleefonka madaaya soo naa guursade qaalaala laf aniga waxay tiri ilmahayga intay ii koreen oo waxay tiri ilmo kale aanan diyaar u ahayn inaan buuqa noocaana iyo ninka noocaana weli 100% aanan ii ahayn oo ii xiran yihiinay tiri boosas albaabadaydu waxaa dhacday tiri maalinkii dambe naagtii in la fure fak waxaa la yiri aabahay wuxuu dhihi jiray ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa ilaa naagtii gadaal ka timid oo gadaal hadday ka timid xataa aan lagula simin ayaday dhibeehe anigana dalaaqayguma dhicinay tiri abaa indhaweyn aboo indhaweyno meeshaan iska soo indhaweynaanine inta naf isgelisid yaa canjeelada iyo cajiinka iyo malawaxa yaa adduunka dhan inay igu suubsanayso waa ogahe taraagyada xataa waa laygu wataa dalaaliintu xataa waa idaawadaan waxa dhan waa la socdaaye ordoo inta laabatid oo faraa ka shaqaysiisid muuqaalka laag saara baryahaana laagti waa aad yarayseen sheergaraytu waa yarayseen
gabadhaan hadduu iimaanka qanjaha u buuxo yaa oo like ay idin kala hadlayn isku xishooday orda muuqaalka like soo saara yalla faraa ka shaqaysiya naya indhaweyn war faraa ka soo shaqaysiya waxay tiriyaan war idinku daalinine ninkii wuxuu noo imaadaayay tiri waxaan idhihi tiri horta maskaxda naagta haddaad furtay adaa furtee maskaxda aan horta cabaar soo degsado oo guriga hooyaday aan kasoo dhargo kabacdi aan aniga iyo adigu waxaan isugu imaan doonaa reerkan min bilaaw ilaa dhammaad sidii aan u dhaqa lahayn waayuhu yiri tiri kabacdi wuxuu bilaabay tiri sida naag la shukaansaayo inuu habeen walba taleefon ii soo diro cali soo yahay cambare soo yahay xaajiyadaydi say tahay hooyo say tahay aabba soo yahay shukaansi iyo hadda iyo koow in waxay tiri la ishukaansado waxaan ku iriyay tiri guurkeenu iyo gurigeenu wuxuu lambar 1 ku dhisnaa karaa xoolo adduun xataa kaama rabo laakiin waxa aad haysat inaan ka qadaynin koow in nin raga wuu guursadaaye gurigaaga waxaad u qaban weysay oo gurigaaga weli baahi kuu qabo inayna naa kalena soo dhexgelin in aad aboowa qanaxyada aadan weli bedelin aad kulli bedeshid inaad sadahabo qajijac leh aad ii gadi ileen adaa aroose ani maa aroos ku dhehe aroosaa miskiin maahane intaa inaa ii soo bisid aase wuxuu igu yiri waa igu badine haye haddaa baqiil tahay oo baqiilkii shalay aa ku taagan tahay anigu hadda nin baqiila ma rabee albaabkaas iiga deg qiimaan isla leeyahay tir markaan waa qurux badanahay waa shaqaystaa anigaa bil walba waxay tiri lacagta isoo gasho markaan lacag fiicana isoo gashee dahabka meel walba ka lulanaayo waxay tiri anigaa shaqaysto markuu ilmihiisa soo booqanayo naaga wuxuu imaahay tiri caraf badan oo qurux badan oo dhalaal badan oo ayadaran isku tootoosan oo ilmiheedu qurux badan yihiin guriga waa uu imaahay tiri naa hooyaday uusan lacag sii jirinay tiri saasuu lacagta ugu soo qofaa baqiilkii shalaba ma ahan ninkii waxay tiri inta soo rujuucay oo wuxuu ugu yiri tiri awal waxaad ka qadneed ood ka baahatay ballan waxa igu amaanta inaad inta aad rabtid ka yeelatid boosay tiri may nus boosay tiri oo aanan lacag badnayn uu yiri tiri waa ku siinaa aasaan waxaan ku yiri tiri makaa dhaba ahaa isii inta waxay tiri bahal bacweyne ah ceelashuu ku yaalee aan dhaax ka siiste aan ijaarti aan hooyaday waxaan yiri tiri hooyo inta kasoo dhacdo dhuruqda yare kasoo dhacdo bil walba ama koronti ka dhiibta aan bii ka dhiibta maaha ilmaha dhinac kaaga dabartaay kasoo qaado gurigiyo waxay tiri oo bedele suuqyada kan ugu shidanaa la igeeyay gurigiyo waxay tiri ii bedele ileen waxay tiri gabdho nin bariis haysto bariis loogu daraa kabacdi waxaa dhacday tiri gurigii markuu bedelay aan erey tiri raali iyo nusaan ka ahay dee xaal iyo xumeena waa aad dhiibtay hadda iyo bilaaw ayaan gurigeennii isugu imaanaynaa gurigii aan waxay tiri ilmihii qolkoodii inta bedelay oo jiifkii bedelay oo fadhigii bedelay oo lacag kaale aragu isiiyey wixii iga nusqaansanaana naag ileen gurigeeda mar walba ayadaa iskale been iskuma sheegayne waxay tiri naanaashtoo taagtay dahabna waa la ii gadee ninkan waxay tiri lacag saas ugu fadhiyaa laakiin saas waa saas adiba ka dhehe kabacdi waxay tiri aan sida aroosada camal inta waxay tiri afaarihii ilaaw saaxiibadee kheyr ku sii isku rugay oo aan iska dhigayay tiri biyo dahab timirta gabdhaha aroosku isku rugaan adduunyo aan isku rugay aan waxay tiri waxaan iri adiguna sidii nin aroosa yaa waa inaad iska soo dhigtid aniga iyo asagu 6 bil may tiri mise 4 bil dhalatay oo dhammaatay waa aan kala noolayn kabacdi aan gurigii habeenada kamida baabuuru noo keenay ilmahaygaan si idab daran ugu labistay hooyaday bahal oodkac ah bahal buskud ah bahal doolsho ah ee iga daba qaade waana loo duceeyey tiri waana loo qudbeeyey soo fadhiista
laba xan waa idinka dhexayso laba dhalinyaro isku nuurayaa tihiin nimca iyo bashbashi barwaaqa idinku ogahay shaydaan gurigiina alla idinkama soo dhexgeliyo sharta iyo shaydaanka allah idin gees mariyo ducii hooyo nagu huftooyo inta habsiyo isku duuduubay uu dhahay la-aanta gurigan ma uusan dhisnaadeen ninkan yaana idinka iloobine hadallada markii bilowga taleefanka mar dambe aan tuuri doonaayo ku qananaasi doonaaye taleefankayga oo qalam inta ku rakibtay oo hadalka hooyada iyo hadalka ani hooyana dhex maro oo tilaabo ula soco jire maraan inta ogaaday aan reetir balaayo kugu dhacday naagaad la shukaansataa oo nin ragaataa u bannaan weligay taleefankaa wax kuma rakiban maxaa hadallada hooyada iyo hadallada asxaabtayda eelkayga aad u dhagaysanee adigu ictidaaruu sameeyey hooyo xataa sheekadaas way ogtee wuxuu marka uu ku dharagsan yahay in hooyaday inay gurigayga ha dhisnaado tiraamogiye inaysan weligeedba igula talin inaan gurigan dumiyo ninkii sabraasad helee waxay tiri sidii markiina loo soo waaniye waa aan soo baxnay tiri gurigeeniyaa imaane wuxuu iigu ooyey tiri qof helay gabar uu 20 sano ama 30 sano uu sugayay camal mawduuca ah markuu soo doontay waa ku farxa laakiin inaan ka bedelay ahayd qisada waan isku dayi doonaa inaan ka bedelo waa gabar ninkeedii si cajiib ah u kasbato qiimaysa Soomaa qisadu sas inaan ku bedelo waa qisada mawduuceeda waa bedeli doonaa laba baarti maadaama ay marayso marka qisada ay ila gashana in aysan ku munaasib ahayn ciwaanka waa ka bedelaa saas ula socda adigu ka bacdi waxay tiri wuu igu ooyay cafisoo iga dalbaday labadaas ilmee quruxda badanaa ay dhashay ilmeyga hooyadooda tahay naagaan kugu doorsanaa male naagtiina meel walba waxay gelisatay waa la furay gurigii waa laga bursaday xaalay furahay tiri hal dalaaqo nuskeedba iguma dhicine adigu waxay tiri nolol waxaa noo bilaabatay ninkii aan ka shalaynay aan dhahay balo alla kanoo kaliya soo guursaday yaa wax ku falay inuu hal mar isku bedelay tiri qofkii aan shalay aqaanay ee kadeedinay ee baahida agtiisa ugu dhimanay ee shopping iyo aan gabdhaha qaar waxay soo qoreen ilaahow nin aan wax siinayaan isku carfinin ana xataa saaminsanahay laakiin marka si loo fiiriyo inaad is carfisid oo is qurxisid adiga nafsadaada xataa way u roon tahay kii adigu waxay tiri aan shopping gacanteeda ku soo gatay isku dhalaalinay asaga maba ahayd tiri lacag anigoo shaqaysanayo oo waxay tiri bil walba lacag gooni soo galayso oo booskii uu siiyayna ay ii dhisan yahay lacag hooyaday aan siiyo oo shoppingkayga sii jiray tiri bil walba oo waxay tiri wuxuu yiri shiishiidkii iyo xawaashkii aan diri jiray ma tiri karee guriga adiga ka mas'uula biilka si qurux badan intaan waa biil waxay tiri biilkayga intii ugu filan oo aan isdhiig karo way kugu filan tahay sheegtay miisku bil walba ii saaraa ijaarka korontada biyaha adduunkaas isagaa waxay tiri reebto oo dadafaco ani biil maxaa kugu filan oo maanta aan anaga ku dhaqmi karnaa aan nisnariye tiri intii aan sheegtay uu isiiyey waxay tiri canug raxmad kalgacayl naxariis kala dambeyn inuu sugayo amoodid aan bash waxay tiri muddo kadib ka siiyey wiilaan dhalay tiri wiilkiioo ii dhalan haddana mid kale isku nuug ah aan haddana bash ka siiyey tiri shaqadii aan ka soo fadhiistay isku nuug hooyo haysato aan ahayay tiri gabar shaqaale ah aan qabsaday iyo gabadhii oo walaashay ah oo ayaduna wax ii barato oo sidii ila joogtay hooyaday waa hooyo naxariis badan oo baahidaada fahmayso oo fahmaysay tiri maanta maxaa kaa nusqaansan gurigii aan hooyo ijaarka ka siinayay waxay tiri ijaarkiisii bulaalay oo macnaheed intii shalay laga qaadi jiray in ka badan uu noqday hooyo waxay tiri hooyo hadda aniga waa isku toosana wax iga nusqaansan ma leh aday hadda ka soo leecday gacan bini aadana si kasta oo lagu siiyo
lagu yiraahdo hoo intaan adigu qaado kuguma filnaanayse gurigaaga wixii kaa dhinaado waa kaasaa dee adigu ku waxayso. waxay tiri labada canug markii aan dhalay bil walbay tiri taqayula maxay ahayd baqiilkii meeshii ii soo fadhi weynaa aan ku kari waayey war waxay sii sadka dahabka dhaash aan dhalabo. waxay tiri sadka dahabka dhaash waxaan inay tiri nimca ku sug ilaahay oo daa isii falilah alxamdu markii la dhihi jiro waad adigu ka bacdi. waxay tiri anigina waa isjilciyey qof u roon oo u dabacsan oo naxariis badan aan noqday tiri. waxaan ogaaday tiri oo cashir aan ka barte ilaan qofka bini aadanka hadduu kaa sii jeesto uu kibro iyo hadduu adoo qiimo badan oo qurux badan oo naag raadis uu galo waa wax adiga kaa nusqaansan. markasta markaan ninkayga saas u fiiriyo waxaan dhihi jiray tiri ninkanu hebelaa mise waa nin kale. waxay tiri umusha dahabka uu iigada iska daayay naa waxaad u malaysaayay tiri sida shalay gabar uu soo guursaday wuxuu ii qalaayay tiri wan ama maxay ahayd midkaan barida weyn leh la dhahaa wan jabsaday uu ii qalaayay tiri. wuxuu iiga buuxinayay tiri oo hooyo leeyahay uga suubi maxaa la dhahaa oodkac aasaan umusha waxaan ka baxaayay tiri anigoo aad u malaysidii tiri carjaw. wixii ka dambeeyana ilmahaygu aslan waxayba iska noqdeenay tiri ilmo isku nuugnuuga aqiiran anigii soojkaygii dad waxaan isku noqonay tiri albaabka markuu kasoo baxaayo shalay inaa isguursanoo kale laba qof oo isku soo ordo isxiisayso dhib iyo dheef isku sheegato isku qanacsan baahi iyo farxad iyo waxaan ku dhahay hanti intaba aanan kala qarsan. maantana waxaan ku noolnahay tiri nolol qurux badan oo farxad leh oo kaala arag oo reerreen ah. aniga mid waa laga yaabaa tiri gabdhuhu inay ku diibaan iscarfiskii aan asaga dartiis u suubinay aniga xataa marka qaar waan isku qoslaayay tiri laakiin marka qaar waxyaabo aad yacni ku qaldantaa oo waxaa laga yaabaa dhinaca quruxda badan inay kuu jeediyaan laga yaabo. qisadii gebi ahaanba abaayo halkaasaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo. maxaad ka faa'iiday ninka inay sidaan u kasbato oo yacni sidaan heerkan ay soo gaarsiisato qaababka iyo wadooyinka ay u soo martay ma wado qurxoonoo la wada mari karaa mise waa wada qaldan. halkaasaan jeclaa qisadii inaan kusoo gabagabeeyo. waxaan inoo soo wadaa qiso midaan ka cajaa'ibsan oo kasii qurux badan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.